وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. seminaarkan oo socday muddo 4 maalin ah laguna baranayay qaar ka mid ah kitaabada cilmiga diiniga sida tafsiirka quraanka kariimka kitaabada axaadiista iyo sidii loogu dhaqmi lahaa diinta islaamka ayna ka faa'iideysteen qaar ka mid ah ardada jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir ayaa loogu talagalay in ardada lagu baraarujiyo ahmiyadsiinta culuumta diiniga ah madaxa seminaarka Sheekh Isxaaq Aadan Isxaaq ayaa ka warbixiyay muhiimadda seminaarkan uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan soo bilaabay dowladda maalintii bisha ahayd 17 Ramadaan ilaa yoomina hada ayaan wadnay 4 maalmood ayaan wadnay maalin walba 4 saacadood waxay isku tahay 20 saacadood duruus waxaan soo qaadanay kitaab la yiraahdo mukhtasar ahkaam as-siyaam wa aadaarihi ayaan soo qaadanay iyo kitaabka aqeedatu ahli sunnati wal jamaa ayaan soo qaadanay iyo mawduuc ku saabsan غزو الفكر وخطورته على الأمة وحن كلا سوق قادني واجبات الشباب تجاه أمتهم وحن كلا سوق قادني كيف عامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس وحن نود بيسي عن سوق قادني محاضرة كساب سنة التقوى وثمارها madaxa mu'asasada as-safa lid-da'wa tanmiya ee gobolka Banaadir Sheekh Xasan Isxaaq ayaa ku booriyay ardada ka faa'iideysatay seminar in ay sii gudbiyaan waxa ay ka barteen Sheekh Cali Nuur Xoogsade ayaa sheegay in ahmiyadoodu ay tahay inay soo saaraan bulsho ka dhisan cilmiga maadiga iyo kan diintaba waxa Ilaahay ku siiyo sharaf ah oo maal ah oo juhdi ah oo cilmi ah oo cumri ah aqalku doon dadaalka wala xaqeeyay wala tansa نصيبك من الدنيا هي اللوبي يا الدنيا لا كعنت بدح فوق طرف كقبو gudoomiyaha guud ee mu'asasada Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan ayaa kula dardaarmay ardayda ka faa'iideysatay seminaarka inay ku dhaqmaan waxa ay barteen waxa loogu talagalay waxay tahay bishan barakeysan in ardayda looga faa'iideeyo in waxbarashadii iyo cilmigii ay ku soo jireen qayb ka mid ah in lagu sii kabo mu'asasadu waxay u taagan tahay mar walba inay bulshadeeda ka habartirto dhinacyo kasta xagga dacwada iyo xagga horumarka iyo xagga gargaarka bulshada tababarkan oo Muqdisho lagu qabtay ayaa dhamaadkiisa waxa shahaadooyin iyo abaalmarino lagu doonsiiyay ardada ka faa'iideysatay seminaarkaasi Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho